meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta oo aan idiin soo gudbinayno talaada taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 May sanadka 2026 qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona ciidanka ilaalada kacaanka Iran xubno ka tirsan ayaa la sheegay inay galeen jasiirad ay leedahay dalka Kuwait wadamadii khaliijka oo aflabadii qaylinaya kuna eedeynaya Iran inay bilowday inay qabsato qaar kamid ah dawladaha khaliijka haddaba warkan sidee wax uga jira tafaasiil baan idinkaga hayaa waqti ka socda Iran oo tagay dalka Oman ciidamada Mareykanka ee ku sugan Hormuz oo sheegay inay markaasi u diideen inuu maro markab watay calanka Malta marin biyoodka Hormuz sababtu maxay tahay waan idin hayaa iyo Israa'iil oo markii ugu horeysay tan iyo markii uu joogsaday dagaalkii Iran ay la gashay laga soo weeraray dhanka bariga haddaba bariga ayaa soo weeraray iyadoo la ogaa dhanka waqooyiga Israa'iil inay dagaal uga furnaa Xisbullah dhabarka ayaa ka jabiyay tafaasiil baan idinkaga hayaa wararkaas ayaa soo kordhay intaynu kala maqnayn Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxa intaas dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kasta aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa talaado wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay barnaamijka aynu ku faahfaahineynaa tan iyo intaynu kala maqnayn taariikhdu waa 12 May haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ciidamada dalka Kuwait ayaa war soo saaray goor dhaweyd waxay leeyihiin jasiirad ay Kuwait leedahay ayaa waxaa weerar ku soo qaaday xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran way soo galeen jasiiradda halkaas marka la isku fara saaray ciidan tiro yar ahaayeen kuwa Iraaniyiinta ilaalada kacaanka waa la qabtaa leeyahay Kuwait way qaylis khaliijkii kale waxay tiri waa nala qabsanayaa Iiraanana soo weerartay safiirkii Iran ee Kuwait u fadhiya loo yeeray waxa la yiri sababta nimayo tartiib u dhacay maxay ku dhacay waana la qabsan lahaa waana basoo baareena waxaan ogaanaynaa inkastoo wararka hadda aan hayay leeyihiin ciidan dooni ay wateen ka halowday oo meesha ku soo dagayo ku nasanay ma iska qalqalaysan idin qabsanayo markaas khaliijkii oo dhan warqaba soo saaray golaha iskaashiga khaliijka hadhi dawladda Qatar hadhi Sacuudiga hadhi mid iyo ururka kulli Kuwait la qabsan rabay Kuwait ariteeda Iran waa cambaaraynayna Iran waa yaabad maxaa la qabsanaa sidee wax u jiraan sheeko wareersana marka soo baxay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray golaha iskaashiga khaliijka ayaa cambaareeyay sida la sheegay xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo soo galay jasiiradda la yiraahdo Bobian oo ay leedahay dawladda Kuwait xogayaha guud ee golaha iskaashiga dawladaha ku jira khaliijka ninka la yiraahdo Jasim al-Badawi ayaa sheegay inay cambaareynayaan ciidamo ka tirsan ilaalada kacaanka Iran inay soo galeen jasiiradda la yiraahdo Bobian ee Kuwait ku taala kuwaasoo qorsheynayay sida la leeyahay howlgallo cadawtinimo ah marka Iran way yaabantahay waxa leedahay war meesha ku leexdeen nimankan way socdeen waana la qab meesha waxay qorsheynayeen weerar cadownimo ay qorsheynayeen kanay sameynayeen khaliijkii oo dhan saas hal ugu ku taagay
cabsida ay ka qabaan iiraan babali kartid waa 10 nin waxaa labaynaa la leeyahay dhowr iyo 10 miya ay ahaayeen oo ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ka tirsan meel jasiirada tagaan dooni ay wateen waa nimankii dee badda iskaga ordayay kanaacadii wixii waa mugtay marka meeshaasay ku leexdeen nimankii waaba nala soo aado waana laga qabsaday jasiiradii taageen marka warkaas waxa uu ka mid yahay wararka cusub ee soo dhacay warka kale ee cusub ee soo dhacay waxa leeyahay Mareykanka waxay sheegeen markab calanka Malta watay inay u diideen inuu maro marinbiyoodka Hormuz maxaa dhacay Malta iyo ayaga dagaal ma ka dhaxay maya sidee wax u jiraan may waa ka shakina Iiraan xageeda inuu maaragtay cunaqabatayntii jibinay shaki ma markab dhan loo joojinaa ma la hubo miya dooda ka socota waa yaabaysa haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxay sheegeen ciidamadoodu inay u diideen markab shidaal qaadayay oo watay calanka Malta inuu ka gudbo marinbiyoodka Hormuz afhayeenka ciidanka ilaalada ciidanka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo u waramay Al Jazeera ayaa sheegay in ciidamadoodu ay markaa joojiyeen markabkaas oo ay sheegeen inuu ahaa mid ku xadgudbayay cunaqabataynta ay saareen Iiraan mid ku xadgudbayay inuu ahaa marka sheekadaas iyaduna halkaas maraysa markabkii ay rabeen Mareykanku iyaguna waa celinayaan Hormuz Iiraan kay rabto waa celinay mid kabta la sii deynaa Iiraan halkaas ka fadhisaa Mareykan halkaas ka fadhiya laba isbaara taala Hormuz isbaarada Iiraan iyo isbaarada Mareykanka labadooda midkii ku celiyo midkii asfaami weysuu ku celinaya marka saasa marka xaalkeedu meesha noqday qodobka kale ee barnaamijkeena labaad aynu ku soo qaadanayno wararka soo kordhay kamid ah wafdi ka socda Iiraan ayaa booqanaya wadanka Cumaan iyo Iiraan waa daris dhanka kale Hormuz way saaran tahay Cumaan badeeda qaybo badan oo kamid ah Hormuz ay soo galaysaa marka Iiraan iyo Hormuz nimankan Cumaaniyiintuna waa saaxiibo waa tii shirar dhowr jeer lagu qabtay meesha Iiraan ay tagtay Iiraan marka waxay leeyihiin meeshaan waa noo qabtay gacanta ku dhigay wixii xisaabaada ee ka soo baxa percentage-kiina leedin maadaama meesha wax ka degantiin marka arinta Hormuz wafdi loo dirsaday dawladda Cumaan loo tagay nimankan kala dhan waa la ignore gareena khaliijkani waxaani meesha wax kama galana le nimanka khaliijiyiinta anaga saaxiibka nahay waa Cumaaniyiinta marka aan xogaa afgaranayna lagu leeyahay haddaba marka aan idintu soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera ayaa qoraysa waxay leedahay wafdi Iiraan ayaa booqanaya saldanada Cumaan iyagoo markaa kala arisanaya arrimaha ka taagan Hormuz wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan war ay soo saartay ayay sheegtay in wafdi reer Iiraan oo markaa ay wada hadallo la leeyihiin mas'uuliyiin Cumaaniyiin magaalada Masqad iyagoo ka wada hadlaya arinta marinbiyoodka Hormuz iyo waliba in halkaas si ammaan ah loo maro maraakiibta iyo hawlaheedana way ka wada hadleen meesha waa qabtay leeda Iiraan adinka kaliya xogaa xisaabtiin meela saara xogaa percentage-kiina qaat meeshan waa kala tuuranaynaa ilaa marka nimanka Iiraaniyiinta nimankaas waa marka hawshaas ayaa iyaduna halkaa ka socota qodobka kale ee barnaamijkeena labaad aynu ku soo qaadanayno wuxuu yahay tan iyo markii uu joogsaday dagaalkii Iiraan iyo Israa'iil iyo Mareykan dhex maray Israa'iil dhanka bariga lagama soo weerarin Israa'iil sideedaba waa waqooyiga iyo bariga iyo meelahaas ay u kala qaybsan tahay marka bariga waxay xigtaa Yaman iyo Iraq iyo dhulkaas waay dhanka waqooyigana xuduudda Lubnaan waa Xisbullah meesha joogto ku hayso waay marka halkan iyagoo iska fiirinaya ayaa maanta diyaarado drones dhanka bariga goordhow naga soo galeen leeyihiin warka hadda cusub oo soo dhacay haddaba markaan idintu soo warkii ugu dambeeyay yaa soo weeraray nimanka Al Jazeera waxay leedahay ciidanka Israa'iil ayaa goordhow war soo saaray waxay sheegeen inay ka hortageen diyaarad drone oo dhanka bariga ka timid oo markaa la sheegay inaan la garanayn ujeedadeeda laakiin dhanka bariga inay ka soo weerartay Israa'iil difaacyada hawada ayaa ka hortagay diyaaradaas iyagoo maraya iyadoo markaa ku sugnayd deegaanka la yiraahdo Eilat haddaba idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadu ay sheegeen in diyaaradaasi ay ahayd mid drone
waxaana la sheegay inay 3 wadan midkood kasoo weerar tagtay wadamada Ciraaq iyo Yemen iyo Iiraan 3 wadan midkood ayaa bariga soo weerari kara Ciraaq iyo Yemen iyo maartay Iiraan waa awlaadeedii Xuutiga iyo kuwii Ciraaq joogay iyo Iiraan midkooda diyaaradda nagu soo weeraray marka ilaa hadda ma jiro dhinacyadaas wax tafaasiila oo warka ku saabsan oo ay soo saareen haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa wixii akhbaarada aan aragna soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirin متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هب عصرية أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض على شقة مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن هب عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكمها القرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد بحيث فاهينك على حديد نمبر الشاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta oo talaada ah qaybihii ugu dambeeyay iyo akhbaaraadka wixii warara soo kordha ayaynu barnaamijka ku faaqidaynaa haddaba telefishinka Aljazeera ayaa goordhow war degdega soo qoray wuxuu leeyahay shaqaalaha la socda maraakiibta ku xaniban Hormuz oo lagu qiyaaso 20,000 oo badmaaxiin ah oo maraakiibta saaran oo shaqaale ah waxay sheegeen in xaaladoodu ay maalinta ka dambayso si adkaanayso oo maartay maraakiibta biyihii ay ka sii dhamaanayaan qaarkood dhibaatadu ay adag tahay sidoo kale qashinkii meel ay ku shubaan ay leeyihiin maraakiibtii wixii oo dhan marka waxay leedahay Aljazeera waxay soo direen fariin ay leeyihiin 20,000 ku dhawaad shaqaalaha ayaa nahay maraakiibta halka ku xaniban la socda fadlan hana la sii daayilay qaarkood waxay leeyihiin mar kale ba soo noqonayeen hal mar hana la daayilay Iiraan iyo waxa meesha laba isbaara taala Iiraan iyo Mareykan midba mid u taala hadda midkan Maalta la leeyahay Iiraan way soo deysay markay soo deysay Mareykanka cali